الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ودرسي لحية تبناد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. waxaynoo soo dhameeyay darsigeenii hore nabiga iyo qaraabadiisii oo cunaqabatayntii laga qaaday. nabigu dacwadiisii uu iska sii watay, waa faafinayay, uma aaba yeelayn shirarka ay Quraysh karayso. laakiin odagii Abu Daalib ahaa ee nabiga difaacayay 80 beedadiisii kor u dhaaftay, uu jilcay, uu daciifay, tabar ma hayo. tabardaradii odayga xanuun baa ku darsamay. Quraysh way tashadeen, waxay dhaheen odaygii waa kan waa dhimanayaa, xanuunkan kama soo harayo, waada haddii uu dhinto oo Maxamed hadhow waxyeelno, carabta inta kale baa waxay oranaysaa markuu adeerkii dhintay bay doonteen oo waxyeeleen. marka intuu nool yahay odaygu aan ka faa'iidaysano oo u tagno oo Maxamed la heshiino bay dhaheen. 25 nin oo ragii waaweynaa ee Quraysh ah ayaa Abu Daalib u yimi. waxaa ka mid ahaa raggaas Utbah ibn Rabiica wa Shaybah ibn Rabiica wa Abu Jahl wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyaan. waa ragii waaweynaa ee ashraafta ahaa ee Quraysh ka mid ahaa ayaa meesha yimi. Abu Daalib bay u tageen, waxay ku yiraahdeen Abu Daalib, nin baa tahay agtayada sharaf ku leh, waxaan arkaynaa inaad xanuunsan tahay, haddana way ku haysaan. inay dhimashadaadii timaado waa suurtagal. waxaad og tahay inaan kaan aad adeerka u tahay, inaan arrin iyo dacwad isku hayno. waxaanu kaa codsanaynaa inaad u yeerto aan waanwaan wada galno oo wada hadallo. isaguna diintiisa wax ka soo dhaadhaco, anaguna diintayadaan wax ka soo dhaadhacno, aan meel dhexe isugu nimaadno baan rabnaa. waayahay buu yiri odagii Abu Daalib ahaa. nabigu u yeeray sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ku yiri yabna akhi, inankii walaalkaygow, هؤلاء أشراف قومك، qoomkaaga kuwoodii ashraafta ahayd waa kuwan inoo yimid. waxay u yimaadeen inay waanwaan kula galaan iyo heshiis, bal ka soo dhibco meeshaan aad taagan tahay oo ragga la hadal. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam, ara'aytum in a'daytukum kalimatan takallamtum biha malaktum biha al-arab wa daanat lakum biha al-ajab. war haddii aan kelimadina iraahdo kelimada aan idinku yeeray, haddaad ku dhawaaqdaan oo tiraahdaan, carab oo dhan idinkaa mulkiyan, cajab oo dhanna way idinsoo hoosgelin. yacni adduunkao dhan waa maamuli doontaan. Abu Jahl baa soo booday. maahiya buu yiri, war sheeg kelimadan, wallaahi iyada iyo 10 kalaan ku siinaynaaye waan oranaynaa. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam, laa ilaaha illa allah dhaha, kana taga asnaamtan iyo waxaanaad caabudaysaan. sacab bay qaraaceen oo waxay yiraahdeen, aturiidu yaa Muxamed, oo ma waxaad doonaysaa an tajcala laalihatan, ilaahyaasha faraha badan inaad ka dhigtid ilaahan waaxidan, ilaah keliya. 360 ilaah baan haysanaa, markaasaad leedahay ilaah keliya soo raaca. arrintaadu waa wax lala yaabo bay dhaheen. way is eegeen oo waxay yiraahdeen, wallaahi ninkan wuxuu ka tanaasulayo ma leh, waa adag yahay, kama soo dhaadhacayo meeshaas uu taagan yahay, ina ka dhaqaajiya. way ka dhaqaaqeen iyagoo isugu dardaarmaya oo leh, isbiruu calaa aalihatikum, kumitida oo ku adkaysta diintii aabayaashiin, ha ka teginina. intaas hanoo sii joogo. wabillahi tawfiiq.